بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون dalka Jabuuti shalay gelinkii dambe waxa ku geeriyooday jaamac Maxamed Qaalib jaamac yare oo dhulka Soomaalida aad looga yaqaanay xilal badan ka soo qabtay dawladii Soomaaliya la isku oran jiray soo qabtay taliyaha ciidamada booliiska wasiirka arrimaha gudaha iyo xilal kale hadda waxa dhinacayga fadhiya Salmaan Cumar ku joog oo ay yaqaaneen ilaa 1957 kana wada tirsanaayeen ciidamadii dawladda la isku oran jiray Soomaaliya adeer soo dhawow aad bad mahadsan tahay inaad naga ogolaato inaad taariikhdii jaamac yare wax kamida intaad ka xasuusato nooga waranto jaamac yare goorma isbarateen inteeba istaqaaneen taariikhdiisii maxaad ka xasuusataa horta marka hore waxaan taasiin u gudbinayaa qoyskii iyo caayiladii uu ka geeriyooday jaamac Maxamed Qaalib ilaahay naxariisana siiyo ilaahay samriye baan ka siiyo ilaahay awalna khayr qaba ilaahay ka siiyo insha Allah biidnillaahi kariim Allah yarxama jaamac Maxamed Qaalib anuu ilaahay xilliga kunturiyada doodii waa shaqada soo galay waan qiimay uu iga horeeyay shaqada aniga aad baan intii dambeysay uu wada shaqeynay oo madaxbu noo ahaa inta badan madaxbu noo ahaa isagoo mararka qaarkood wuxuu ahaan jiray labadii gobol ee waqooyiga la oran jiray u bixiyeen reer koonfurka gobolada waqooyi ayuu madax ka ahaa biliiska oo Burco iyo Hargeysa laba region ahaa laba gobol ahaa iyo inta badan madax ka ahaa oo sareeyay barigii dambe dawladda military weelku qabsatay 96kii toddobaadkii waxaa loo dhiibay ciidankii biliiska Soomaaliya la oran jiray ayaa taliye looga dhigay markaa uu ka bedelay jaamac Ali Qorshaal in la oran jiray ilaa 74 December ayuu taliyaha ciidanka biliiska ahaa jaamac waqti adag uu runtii la kulmay wuxuu ahaa nin aad iyo aad shaqada ugu firfircoon oo aqoon dheeraadana u lahaa shaqada biliiska wax badanna bariga biliiska ka qaban kari lahaa hadduu madax banaanaan lahaa oo waqti askari meesha haystaba haydo shaqada looma madax banaanin cidina markaa wixii laga fursad heli lahaa wanaagsan taariikh badan buu kaga tegi lahaa biliiska saaran uu isleeyahay aqoontiisa haddaa la yidhi laakiin arrimaha xanibay waxaa ka mid ah xilligaa askarinimada meesha haysatay aan madaxiisa loo ogolayn inuu isagu daysigiisa wax u qabto jaamac wuxuu caan ku ahaa nin aad iyo aad waxbarashada dadaalkeeda isagoo aan iskuul la gelin wuxuu buruufgareeyey oo caddeeyey in waxbarashada suuqa laga baran karo guriga laga baran karo dibadda laga baran karo iyadaan iskuulba loo tegin isagoo dhalinyaro kurayara ayuu xisbaray wuxuu soo gaarsiiyey oo aqoonta ka gaaray heer jaamacad kasta intuu ku gaadho laga gaadhay uu ka gaadhay haddana waxay ugu dambeysay bariga dambe isagoo carabida iyo faransiiska isagoo nin weynaa waa hadda biliiska iyo ka tegey oo markaa retire ba ahaa carabidii iyo diinta iyo faransiiska sii barta oo dhiganaya aad iyo aad baan xitaa ugu ammaani jiray waxyaabaha mudnaan uu ku lahaa waxiiba ilaahay siiyey bay ahayd nin isdhisay oo noloshiisii ka soo qaaday kurigii yaraa ciyaalka ahaa ilaa heerkaa sare ayuu soo gaadhay marka taariikhda aad iyo aad ugu wanaagsanaa nin cibaadada ku wanaagsan buu hadii goor xafiiskiisa sijaayad u taalo ayuu ahaa intii aanu ka garanayno shaqada biliiska ragga mudnaanta hore la siiyo ayuu ahaan jiray xagga aqoonta biliiska hadba ragga joogo ragga ugu horeeya ayuu ahaa waxaa kaloo sii xusuusnay barigii ingiriiskii saddexdii sarkaal afartii sarkaal ugu horeeyay sarkaalnimo la siiyo ayuu ahaa baan ka mid ahaa jaamac u furay inuu ka saddexaad ahaa inuu ka afraad ahaa waxaa ka horeeyay maxamed halac iyo jaamac Ali Qorshaal cabdidhibo iyo isaga cabdi maxamed saxaardiid Allah yarxamo isna dhintay iyo jaamac kii horeeyay ama kii afraad buu ahaa ee kabtanimada qaata kabtanimada sarkaal ugu noqon jiray markaa ama kii afraad ama kii saddexaad isaga cabdidhibo
kii horreeyey ma hubo laakiin kolay ninka afraad ama ka saddexaad buu ahaa xilligii ingiriisku dalkan xukumi jiray saraakiisha raggii noqday ayuu ka noqday lixdankii markii lasoo gaadhay isagoo gaashaalla abaaba lixdanka calanka la qaatay marka lixdanka gaashaalaha ka waran mala ma yarayn dee mala soo maaha sidaasaan firaya beriiskaanu ahayn inuu sidaa ku qori jiray baan firayaa 33 inay ahayd marka imika da'da imika 9 wax ka dhimayiin malaha ayuu ahaa laakiin da'du kamay muuqan ba jirin jaamac allah yarxamo waayo wuxuu nin balwad lama ahayn nin sigaar caba ma ahayn nin qaad cuna ma ahayn nin sportska ciyaara buu hadiya goor oo sportska tenniska ayuu aad iyo aad u ciyaari jiray nin naftiisa u aad iyo aad u dhisay buu ahaa lafihiisa iyo maskaxdiisaba doorta inahan ka xusuusnahay waa inaha gabowgiina waa jiraan wax badan waa lilaawgeed ku leeleen xilalka uu soo qabtay marka laga yimaado taliyihii booliiska inuu soo noqday kale ayaga maxaad ka xasuusataa waxaan xusuustaa 74 markii laga bedelay booliiska oo nin matukada leeyahay lagu bedelay oo ruush laga keenay waxaa loo dhibay dowladaha hoose waana xamar ku jirin aan xamar maayirkeeda xamar baa laga xukumi jiray muddo hayay halkaa dowladaha hoose oo aad loogu ammaanay shaqadeeda runtii muddo markuu joogayna dabeed waa laga bedelay hay-addii qaxoontiga oo markaa dadkii qaxoontigii soo jaba ee faraha badnaa ee gool walba laga sameeyey ee hay-adda loo sameeyey hay-addaasaa loo dhiibay barigii dambe markaa dowladdii si aad bari way safgaran waayeen waa laga bedelay meeshii jaamacinta ka dambaysa markaa shaqo muu haynin xilmu hayn odayaasha dalku buu ka mid ahaa markaa intii dambe muddooyinka ugu dambeeyey intaa ka dambeysay wixii burburkii ka dambeeyey jaamac hagu ku sugnaa qurbaamiya waxaan u malaynayaa inta xagga xamar markii hore hal markii halkuu joogay mar ilaa boorama halka waa lagu wada joognaa waan garanayaa halkan baarlamanka wadaa lagu daray xildhibaanadii ugu horreeya waa lagu daray haddana markii dambe mala colkii xamar qabtay inuu ahaa baan filayaa qurbaa ma u deganayn qurbaa inta ka warqaba shacab ma deganayn laakiin meelahan dhawo jabuuti iyo xamar intaas u badnaa waxaad xustay inaanu formalkii ama waxbarashadii caadiga soo marin oo xisbaray bataan ugu yara noqo sidoo wax isu baray goormo sida hore waxaa isagoo kuraya halka ka yimi argaabo oo yar isagoo kuraya buu ka yimi dabeedna waxbuu isbarbaray aad la siiraad buu galay isagoo dhallinyaraha dabeed wasaaradda boostadu u yar u shaqeeyey dabeedna waxaa laygu yidhi male isagale inaan ka maqlina waaban u malaynaya mase hube nin cabdulaahi caabi lo odhan jiro oo biliiska markaa ka ahaa saadka biliiska hayey cabdulaahi caabi faarax ayaa qoray jaamac biliiska markaa iyadoo ay u arkeen firfircoonidiisa ninkan yare wax baranaya oo markaana biliiskaba dee cid wax qortaaba ma jirin markaa waxaa lagu yidhi 3 xarif laba lagu qaatay ayaa lagu qaatay halkaasuu markaa waxbarashadiisii kasii bilaabay mar baa sheekh loo yara dirigin tilmiidadka wax la yara dhigan jiray muddo yar laakiin taas waxba badan umay kordhina isaga ayaa suuqa iska koray dadka macallimiinta dadka ay u tegi jiray habeenkii guriga ugu tegayay maalintii meel ka heliyaaba miduu xarif yar ka faa'iidaystaba miduu wax yar ka qortaba miduu buug yar ka saxdaba dawakil halkaa isku soo gaarsiiyey wuxuu ahaa kaasi salabaan cumar kujoog oo nooga warramayay taariikhda allah u naxariistee jaamac maxamed qaalib jaamac yare dalka jabuutina ku geeriyooday meydkiisiina maanta magaalada hargeysa la keenay aas qaranna loogu samayn doono hargeysa qoonmaal islaam io fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam io fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor
fatwa ama islaam una dir hal shan eber